dawada asad la socotaanba guud ahaan deegaanada kala duwan ee dalka dhawaanta waxa loo doortay xildhibaano ku kala matali doona golayaasha deegaanka iyo wakiilada hadda waxa barbarkayga midig fadhiya xildhibaan Xasan Axmed Caynaan oo kamid ah mudanayaashii hore golaha deegaanka magaalada Samarkana xilligan ah mudanayaasha xil sugsiinta xildhibaanada cusub ee dhawaanta loo dhaarin doona magaalada Boorama Xasan muddo dheer baad ku soo jirtay golaha waan kaaga mahadcelinaynaa wareysiga gaarka ee halkan aad nagu siinayso muddo dheer baad ku soo jirtay hadda xildhibaanada la doortay sida og tahay oo dhawaan ayaad wareejin doontaan kursiga aad ku fadhideen muddada 10 sano ku dhaweyd sideed u aragtaa xildhibaanada la doortay say kula muuqataas doorashadii dhawaan dalka ka dhacday raggii ku soo guuleystay tartankii doorashadii qiimaha lahayd ee ka dhacday dalka doorashadii isku sidkanayd ee taariikhiga ahayd waxa mahaddeeda iskale ilaahay oo nabadgelyo noogu dhameeyay waxa kale oo mahadnaqayaa dhammaan ragga soo baxay meel kastay ku sugan yihiin baarlamaan iyo golaha deegaanba waxaan kale oo mahadda ugu weyn iskale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu ahaa ninkii hirgeliyay in nidaamkan isku sidkan uu dalka ka dhaco waxaan kale oo aan u mahadnaqayaa komishanka qaranka saddexda xisbi qaran iyo dhammaan ciidamada booliska iyo militariga oo nabadgelyada aadka u ilaaliyay barsaabada iyo maayiradii hore oo iyaguna la shaqeeyay sidii nabadgelyada ay ugu dhacda iyo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland oo hiil iyo hooba la garab taagneed si doorashadaas nabadgelyo ugu dhacdo waxaan kale oo aan bogaadinayaa oo aan aad u hambalyeynaya musharaxaygii aan watay Liibaan Cali Balaag oo degmada Boorama ka soo baxay oo ilaahay nagu guuleeyay oo aan leeyahay hambalyo hankaaga soo bandhigtay oo aad golaha ka rabtay in laga dhigo maanta maayarka degmada Boorama hambalyo baan leeyahay waxa kale oo soo dhaweynayaa dhammaan musharaxiinta kale iyaguna xildhibaanada kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo leeyahay ilaahay kii ugu haboonaa meel walba inaga soo saaro keliyata waxa kale oo aan ku darayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta sidaan ogsoonahay doorashada isku sidkan Imraanow waa taariikhi adduunyadii magac weyn aynu kaga helay maadaama ayna tani caalamka Afrika horda Afrika iyo caalamka in badan ka dhicin waxa halka ugu yimid Jamhuuriyadda Soomaaliland magac weyn oo u dhow lana oran karo waa aqoonsigii Jamhuuriyadda Soomaaliland intii turantureysay ee waxaasi oo dhan garanaysa fajida la daba socotay waan iska cafinay waxa jira kuwa dawladihii hore ka tirsanaa oo xisbiga afraad la yiraahdo kuwaana waxaan leeyahay war qaranku waa dhaqaaqay lugta aad haysaan iyo xaasidnimada waxba meel kuma gaadhaysaan Soomaaliland jamhuuriyad adduunyada laga aqoonsiyay noqon doonta mustaqbalka magaciina hadilina mudane saan la socono dalkan hadda xildhibaanada idin bedelaya aad waxaad kamid ahayd 12 mudane ee degmada Boorama maamulayay muddada 10 sano ahayd saad la socota dhaliil badanna waad lahaydeen mudanayaashiina hadda kuraasta laga bedelayo oo magaalada waxba kama qaban dhibaato badanna way ka soo gaartay degmada inta aad joogtaan oo wax horumar ma sameyn bulshaduna aad bay idin dhalishaa xildhibaanada hadda idin bedelaya maxaa laga filan karaa maxay tahay fariinta u diraysay xildhibaanada aan hadda soo ilaahay soo saaray ee golayaasha deegaanka u soo saaray wax fiican baan ka filanaa inay naga fiicnaadaan baan ka filanaa anagu qaarkoodna tababar baa ma siino wax weeyaan ma xuma xildhibaanada aan soo waan ku faraxsanahay waanu soo dhaweynaynaa inay naga fiicnaadaan baan rajaynaynaa anagu oo marna annaga naga xumaan hadii aan ka dhex galo tababarkaasiina tababarkaasina waa inay dadka si fiican ugu shaqeeyaan oo ay dalka u shaqeeyaan ay qaranka u shaqeeyaan xeerka ilaaliyaan iyo diinta islaamka idinku tagteen maxaa la idinku xasuusin doonaa Xasan oo mid iyo laban annaga taariikhdu way sheegi doontaa wixii aanu qabanay wax loogu noqonayo ma maanta annaga xuma iyo wanaag waxaan lahayn ma anagu ka tagnay xuma iyo wanaagba kuwa soo socdana waxaan ka rajaynaynaa inay wayna noqonaya ku wanaagsan insha Allah ugu dambeyntii hadda mudane golaha deegaan oo kursiga laga bedelayaa tahay ahaan siyaasadeed oo kale ama mustaqbal kale oo siyaasadeed u socotay oo hadda noo sheegi kartaa ma jira adiga shakhsiyan Xasan Axmed Caynaan wuu jiraa wax Allah xaq Allah ku maqan laakiin hankaygu wax weeyaan inaan bartan ka sii qaado oo aan tago meel ka khayr badan insha Allah inaan dalaco waan jeclaa wayna noqon doontaa insha Allah daawadalkaasna waxa ahaa xildhibaan Axmed Xasan Caynaan oo kamid ah mudanayaasha hadda laga bedelaya kuraasta golayaasha deegaanka ee magaalada Boorama 10 sano in ka badanna waxa ahaa mudane ka tirsan golaha deegaanka magaalada Boorama Xasan halkan ayuu wareysi dheer nagu siiyay aad baan uga mahadcelinaynaa wareysiga uu na siiyay